السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكين يقوليد يا برامج كل xiisa leh sida caadadan ahayd markasta waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe tiraahdo like tiraahdo asxaabtana si wadaagtid aad baad mahadsan tahay maanta waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo ama aan idin soo gudbiyo waxa la yiraahdo Illuminati a'udhu billahi shaytaanka Illuminati waa qolyo shaydaan ah shaydaanka a'udhu billahi shaytaanka askanaar waa qolyo shaydaaminta la shaqeeya oo raba inay dunida oo dhan fikrad ahaan xoog ay ku qabsadaan adduunyada fanaaniinta ugu waaweyn siyaasiyiinta dadka billionaireska ah waxaasoo dhan ayaa ka kooban yihiin ama waxaasoo dhan ayay madaxa ka haystaan si kale loo yiraahdo ama qolyaha shaydaanka xiriirka la leh ama hadii si kale loo yiraahdo qolyaha shaydaanka caabuda ee dadka adduunka fanaaniinta iyo dadka ganacsadayaasha iyo dadka billionaireska riishka ka dhiga bal waxaan eegaynaa ma jiraan yacni dad Soomaaliya gudaheeda ama wadanka gudihiisa xiriir la leh fanaaniin ha noqoto ama dad shacab ha noqoto marka waxaan rabaa inaan fiidiyoga reaction ka bixiyo waxa soo galiyay channel ba soo galiyay bal aynu markay jiraan ama wax run ay jir bal aynu wada bilaabno insha Allah ta'ala waxaan doonayaa waxaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarta reer Soomaaliya ayaa waxaan doonayaa inuu sheego in qolada Illuminati-ga in badan maqasheen oo inay dhab yihiin oo ay jiraan waad ka maqasheen qolada asxaabtiina ama maxay waalidkiina waxaana caddaynaa qoladan inay halkan si wada arkayno waa qof jooga Soomaaliya caasimad Soomaaliya Hargeysa ayaa wuxuu ka sheekeynayaa يعني بالألومناتي سيدو مركو كتير شري سيدو نوشيجي بالسوق وهي الدنيا قف بتشعل هي مو بلان قاضية هالطبعا ما حاجة قلنا السيد أبو بيرس وحا وين يعني كو أنت قولي رغم مدوك وقليان وكحيان ما حاجة هو بلا فتين أو آدم مدو أنت قليان كو بيجا أنت كو سوق آدم كورن يعني ما حاجة هو بيجا عب ما حاجة طلباتنا وحا طبعا انت waxaa ku xigta marka dhiig cabti inaad neef qooracaysid oo koorna shaydaanka u qooracaysa ma waan marka liya kuma agnaa bishiiba mar waxay inta magaalada laga baxo ama waxay ahayd u qooracaysid shaydaan dartii oo iyagu afxiyada kale ka dhigaan tasaddexaadna waxa weeyaan oo ugu daran waxay ku yaraanayaan inta kitaab quraan ku keenaan maxay qoornayaan suuliga laga jeexo waxa la waxa doontid ku samee maxay ahayd انت تولي لك القران تا افرادو ودن بيسانا فاينل ستيب كي waxay tahay inta qol waxay u gelinayaan wada sawiraan iyo dad iyo horeeyay ay ku tusayno qorniyaan ninka ma aragtaa maxay saaysaa ka dhignay qof waxa ku tusay lacag badan inuu helay inuu adduun helay inuu caadi magac helay oo lagu yaqaano bulshada maxay day saxiix khalad baan qoto marka maxay qoladan intaas oo dhan markay ku sheegaan aad tihaadid hay waan aqoonay waan doonayaan galo shardigooda kaliya waxa weeyaan inaga ma bixi kartid waana anaga maxay ahayd ku kontrolna soo doono waxay qoranayaan digniin oo siisiinayaan haddaad naga baxdin bismillah fiidiyoga haddaan halkaa ku joojiyo yarkan Hargeysa jooga wejigiisa la qariyay ayaa hore wuxuu uga midnaan jiray Illuminati-ga sidaas darteed waxyaalaha ay sidoo sheegayo waxyaalaha waxa jira qofka markuu ugu horeysay ballan qaadiya loo sameeyaa in qofka markuu ugu horeysay caan laga dhigayo oo waxaan kugu dhaaday waxa loo soo bandhigaa sawirada dadka adduunka caanka laga dhigo dhan billionaires laga dhigo kale marka dadkaas la tusayaa si oo dadka ugu mid noqdo marka shuruudaha waxa jira oo sidoo sheegay in neef inta qasiidii kala cabsiinayo in waxyaalaha sunnada iyo kitaabka quraanka ay loo reeyo jeex saasa adigu waa amal min shaydaan marka adigu channelka soo dhigay waa isna waa channel yar Soomaali leeyahay saadarteed waxay ka dhigan tahay in ay xataa jiraan fanaaniin Soomaaliya oo xiriir la leh Illuminati-ga oo laftirkooda iyagana sida balan lagu qaaday in dad caan laga dhigi doono tana ay sameyn karaan iyaguna ay sameeyaan wax umada fisqi badan ay umada ku soo dhaxdaayaan horta wax aad iyo aad looga naxo in qof Soomaaliyeed uu marka
waxaan arkayaa aniga laftirkayga guulad ahaan fanaan ka mid ah fanaaninta Soomaaliyeed mar raba inaan magaciisa sheego silsilad buu xidhnaa waxa carabkeeda ama waxa silsilada qaatumka ka lushaa wuxuu ahaa calaamadaha ugu caansan ee ka mid ah Illuminatiga ee shaydaanka fanaankaas waa fanaan la wada yaqaano caana sawiradiisa dhowr jeer ayaan ku arkay isagoo silsilada xiran anigu ma garanayo kuma dambaabayo fanaankaasi ma aqoon darra u geysay mise wuxuu yahay qayb ka tirsan Illuminati marka ilaahay baa og laakiin ala kulli xaal xataa waxaad xiranayso fadlan iska hubi calaamadaha Illuminatiga halka baan dhowr calaamadood soo share gareyn doona calaamadaas wixii ku sawiran insha Allah taala iska ilaali ha xiranin xaraga maaha waxa weeyaan haddii aad xirantay qof kale oo calaamadaas yaqaan ku arko wuxuu ku moodinaa member ka tahay adiguna ogeyn fadlan iska taxadira waxyaabo dharka xiranaysaan waxyaalaha ku qoran iska akhriya intaas ayaan rabaa inaan idin sheego.